aqoontii xirfadii aan lahaa ma lahayn waxa lagaaga saaraa qabiilka aad tahay jireedina lagaaga saaraa isma lahayn marnaba. محدين سيدو سنة كمركو ها كون يسجال بقول يلحي سيدتنكي أيو كم من نقضي شقالها وزارة ورفافين تضلك حل جاس أولا يجلي تلفزيون كقرن كصوماليات وحاونا كم أها شقاله وجوه الرئي كهول جل تلفزيون ك وحاو شقيني إلى لجا جار سنة كمركو ها كون يسجال بقول كو يسجال شنكي حل جا أو أيدرك كبح ذي حكومة دي تلذ هيسي مقعد يستحوى عليه محدين سيدو حاج عبد كاميرا من تي في قرن كدول سياد برانجل شغالي ورية في قرن قاطع كميت أها وحنا شغال بالله عد كبيرة وحنا شغال بالله سنة كيكون سجال بقول ستين إلى حدي وحنا كميت شغالي ورية في قرن صومالي قاطع وحاوها موقال دوبا كترسن تلفزيون كقرنك نصيب درو بربركي باكو دعاي سنة بدن أو قحوتيكو أها مid kamid ah wadamada jaarka dib ayuu u soo laabtay Sidow waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto wasaaradii uu ka tirsanaa xilliga markuu xilli ahaa laakiin maxaa dhacay وزارة فافيت هنوني دولة تلحيسك مع الديار وها إنا أشقي لكن بتاعتم بحالي ما سوى جل كرتت oo sababtuna maxay tahay sababta qabiilka muu hubaysno laan gaala ka dhaltay 4.5 tahay ay waxyaabo lamid waxay ila tahay dadka ku foogan xilligan dhageysiga ama daawashada warbixintan inay fahmeen sababta Sidow looga hor istaagay wasaaradii uu bari qaybta ka ahaa aan kuugu celiyay waa midabta kor sababta ma hubaysnid soo dagaalamin beeshaada ma hubaysno laan gaaba tahay waxyaabo noocaas Amin Yusuf Qasaare waa rugcadaas saxaafadeed waxa ayna waaye badan isla soo shaqeeyeen muuqaal duubihii midabta korka lagu sameeyay magacaygu waa Amin Yusuf Qasaaro waxaa kamid ah shaqaalihii hore ee wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waxaan u shaqeynayay telefishinka qaranka waxaan ku soo biiray sanadkii 1989kii bishii June telefishinka wuxuu ahaa hay'ad weyn oo la asaasay sanadkii 1983 waxaa ka shaqeey jirtay shaqaale fara badan wuxuuna ku yaalay xaruntiisa isgoyska Tawfiiq maalinkii shaqaale aan soo noqday waxaan ugu imid Muxudiin Sidow oo cameraman buuxa ah wuxuu ahaa shaqaalaha waliba dadka way kala jireenoo asaga wuxuu ahaa shaqaalaha joogtada ah dadna baartayna ku shaqeynayeen dadna waxay shaqaalaha joogtada ah wuxuu ahaa shaqaalaha way joogtada ah wasaaradda warfaafinta baaq uu madaxda dalka ugu sarreeyay u diray xog baahiyihii la hayb soocay ee aan xogtiisa idiin soo baahinay ayaa u dambeysay warbixintan waxaan wasaaradda warfaafinta iyo madaxda dawladda ugu sarreeyay madaxweyne farmaajo iyo qayr u qodsanaya maadaama ahaa nin muddo badan waddanka soo shaqeynaya dadkii horena ahaa cameraman horena ahaa aan diyaar u ah inaan ka shaqeeyo wasaaradda